sheekada bakaylihi yaraa. Waxaa jiri jiray xilli hore xagaa aad u adag oo ay dabaylo iyo baraf badan ay dhacayeen dunida qaybo ka mid ah. Xayawaanada oo idinla ay noloshooda ku adkeyd. Barafka oo aad u darnaa ayaa sababay in ay geedihii qallalaan, dhirta iyo midhiina ay dugmaan. Hooyo cunaysi waa baahanahay. Adkayso dhulahaygiyo wax yar adkayso waan helaynaa. Hooyo wax isiiba si adkaysan karo waan dhiban rabaa. Bay dhulahaygiyo waan helaynaa insha Allah sabir qalbigeena gasho in aan ka baxayno dhibkan. Hooyo adna waad daashay ee intee ka helaynaa waad ima weelaysaa. Waan badbaadaynaa alla idinkiyo adkayso hooyo. Haye hooyo. Iriskaygiyo maxaa kugu dhacay soo kac waan ku baryaa adkayso. Hooyo ha isdhiibin hooyo adkayso. Hooyo waan dhiban rabaa ma awoodo. Hooyo waad awoodaa adkayso si aan kuu badbaadiyo nafteyda aan kuu hurayaa. Hooyo bakaylo waxa ay fiirisay banaanka waxayna aragtay barafkii oo meel walba ooday iyo dabaylo xooggan oo dhacaya. Laakiin waxa ay rumaysnayd in aan la dilin in uu dhinto. Waxa ayna go'aansatay in ay baxdo oo cunugeeda baahida ka fujiso. Hadda ayaa baxayaa qabow badanaa dabayl badanaa waan u adkaysanayaa cunugeyga ayaa badbaadinayaa. Maya hooyo naftaada halis ha gelin. Haa waan baxayaa ii ballanqaad inaad adkaysanayso oo aad isugayso inta aan kaaga soo laabanayo. Hooyo ii ballanqaad dhulahaygiyo. Waan ku ballanqaadaa hooyo insha Allah. Xaaladdu aad bay ugu adkayd hooyadii miskiinta ahayd. 2 talaabo markay hore u qaadana 3 talaabay dib u dhacaysay oo dabaysha ayaa ridaysay. Qabow badanaa dabayl badanaa sideen wax yeelaa. Dhinaca kale waxaa jiray dawac isna haystay cunug yar oo dareemaya dhibka hooyo bakaylo haysta mid la mid ah. Cunugiina aad ugu baahnaa. Qabow badanaa gacmaha lugaha isoo gogay. Isla markiiba waxaa soo laabtay dabicii oo saynta jiidaya aadna u niyad jabsan. Ma soo laabatay aabo ma naysan karo. Baahi baa i haysaa waan dhiman rabaa. Nuunahaygiyo maxaa kugu dhacay? Wax isii aabo gaajo ay hayso. Maxaa sameeyaa nuunahaygiyo banaanka looma bixi karee? Ma istaagi karo aabo waxaan dareemayaa daal. Isagu nuunahaygiyo adkayso waan soo qaraabaye. Dabicii wuxuu soo baxay si uu u soo raadiyo wax uu cunugiisa nafta ugu soo celiyo oo baahida uga tiro. Wuxuuna la kulmay dhibaatadii hooyo bakaylo mid la mid ah dabaylo xooggan hadba meel bay ku wiifinayeen. Waxaana isku soo aaday labadoodii oo qaraabdoon ah iyo xaaladii oo aad u adag ba aysa quusan hooyo bakaylo oo weli waxaa ka go'nayd in ay dadaasho. Waa sii raadinayaa ma quusanayo alla dadaalkayga iguma qadinayo. Inkasta oo ay igu qaadato waa inaan cunugeyga wax u helaa allow ii gargaar. Laakiin dabicii waxa uu kaga duwanaa hooyo bakaylo in uu quustay oo uu isdhiibay cabaadka cunugiisa uu hilmaamay. Si kadis ah ayuu u arkay hooyo bakaylo oo hadba meel qodaysa aadna u dadaalaysa. Markaan baa qodayaa hadda ayaan helayaa insha Allah. Meeshaan wax kuma jiraan. Hadda ayaa meeshaan qodayaa waana qasab inaan helaa. Cunugeygii aad buu u baahan yahay allow iisa. Dabicii waxa uu kusoo dhacay in uu khiyaano dariskiisii iyo saaxiibtiisa. Wuxuuna dhaqaaqay dhinaca guriga hooyo bakaylo si uu uga sii faa'iidaysto una sii cuno cunugeedii. Wuxuuna hilmaamay saaxiibtinimadii iyo ballantii u dhaxaysay isaga iyo hooyo bakaylo. Wuxuuna is yiri cad dufan badan oo macaan baad heshay. Adiga iyo cunugaagiiba wuu idinku filan yahay inta uu qabowgu jiro. Waxaan adayg badan ee isoo celinaya muxuu yahay? Adayg badanaa culays badanaa waa cunno waan helay maasha Allah. allow adaa mahad leh. Rajadii way ii rumowday. Hadda waan baxayaa cunugeygiina waan badbaadinayaa insha Allah. Calooshayow hooyo soo dhaqso. Dabicii khiyaanada badanaa wuxuu gaaray gurigii hooyo bakaylo. Wuxuuna u dhareeray cunugii hilibkiisa taahiisa. Markii uu maqlay wuu sii farxay. Alla waan quustayey way ii dhamaatay. Maxaa kugu dhacay yiriso? Kaalay aan ku arkay.
yaa waaye saaxiibkii dabaco xageed joogtaa cunno ma wadaa hooyo saakay baxday ilaa haddana ma ii soo laaban kaalay aan ku arkay bakaylihii yaraa isagoo aad u liita naxariisna ka filanaya dabicii ayuu xaggiisa u soo dhaqaaqay waa soo socdaa waan ku baryayaa badbaadi dabicii khaa'inka ahaa hal mar buu ku soo booday bakaylihii yaraa wuxuuna rabay in uu cidiyihiisa dheerdheer ku soo jarto hilibkiisa laakiin uma suurtagelin oo uu ka baxsaday adeer maxaad samaysay lugtay bakaylihii yaraa dib buu u cararay dabiciina wuxuu isku dayay in uu cidiyihiisa ku soo qabsado laakiinse wuu ka fogaaday oo wuu gaari waayey waad iga fogaatay yariisow waan ka xumahay hadda waa inaan meesha iskaga cararaa inta ayna hooyadiisa meesha iigu imaan dhinaca kalena hooyo bakayle inta ay jidka soo socotay waxa ay soo agmartay gurigii dabicii waxa ayna dhexdiisa ka maqashay oohin iyo taah ka yeeraya cunugiisa yaraa oo baahida la adkaysan waayey xageed aaday aabo soo ood ii kan wax aan cuno yariisow maxaa kugu dhacay ma fiican tahay xageed joogtaa cunno ii keen ha iga tag waan ku baryayaa aaway aabbaha yariisow wuu baxay cunno doonay weli lama soo laaban hooyo bakayle xaalkii wuu ku adkaaday ma cunugeedii bay u geysaa halahan yar oo ay soo heshay misane kan miskiinka ah ayay naftiisa ku badbaadisaa oo ay wax ka siisaa saraaqada ilaahay baa bixiya ee aan qayb ka sii yariiska dhiman rabo waan soo socdaa ee wax ma isiinay haa yariisow kaalay cun xabaddan timirta ah ma wada cunaa haa adaa iska leh yariiskii wuu cunay oo wuu cunay wuuna is iloobay yariisow ma sii joogi karo oo cunugaygii baa iga gaajaysan ee aabbaha igu salaam waayahay waan u sheegayaa sida aad ii caawisay halkan timirta ahna aabbahaa sii laakiin waadna wada siisay ee maxad adiga cunugaygii cunaysaan laba xabaa noo soo hartay maanta way nagu filan tahay berine wax kalaan raadinayaa mahadsanid saaxiib wanaagsan baad tahay oo aad u sharaf badan khayr allaha ku siiyo hooyo bakayle waxa ay u dhaqaaqday xagga cunugeedii si ay uga badbaadiso xanuunka gaajada si lamid ah sida ay uga badbaadisay cunugii dabicii oo niyo jabsan seynta dhulka ku jiidaya isna wuxuu u soo socday gurigiisii nuunahaygiiyo yaa ku siiya cunadan ii sheeg xageed ka keentay geesiyo haa aaba soo dhawow cun anigaan ka dhargey dabicii isaga oo hamuun qaba ayuu cunadii boobay habaryar bakayle ayaa imaqashay anoo oynayo way ii soo gashay waxa ayna wadatay 4 xabo oo timir ah labana anay siisay labana cunugeedii bay u geysay bakayle ma saas yeeshay haa aabo way badbaadisay saaxiib fiican waay dabicii cunadii wuu joojiyey wuxuuna dareemay ceeb iyo dembi aad u badan maxaa kugu dhacay ood cunadii u joojisay aabo waxba yariiskaygiyo hooyo bakayle cunugeedii ayay u tagtay isagii oo aad u cabsanaya oo gariiraya idaa hay cunin idaa maxaa kugu dhacay nuunahaygiyo maxaad saa dhan uga cabsanaysaa dawac baa ii yimid wuunay cuni rabi lugtuuna ii qaniinay dawac baa saa yeelay haa hooyo waa saaxiib xun dhib ma leh hawalwelin anaa ku daaweynayay ee haw cunadan bakaylihii yaraa cunadii buu cunay hooyadiina dhaawicii bay ka daaweysay waxayna ka niyad jabtay dabicii iyo dhaqan xumadiisii dabiciina keligii ayuu meel fadhiistay wuxuuna ka walwalay dhibkii uu u geystay cunugii yaraa aad ayuuna uga shallaayay waxaan sameeyey ceeb badana waa in aan aadaa oo aan cafis ka dalbadaa dabicii wuxuu u degdegay gurigii hooyo bakayle markii indhaha isku dhufteenna wuu xishooday oo madaxuu hoos u foorariyey wuuna istaagay soo soco oo haddana ma waxaad iigu timid in aan ani ii dhibaataysa waan ka xumahay walaashay garamaayo waxaan dhaho waa qaldamay ee iska kay cafi cunugaygaa ii sheegay sida
aad u badbaadisay iska kay cafi tani nolosheeda cashar bay ii noqonaysaa seen ku aaminaa mar kale ii sheeg waa ku dhaaranayaa u noqon maayo hal bar leh fursad isii hooyo Bakaylo wax yar bay fikirtay waxayna nafteeda ku qancisay in ay cafiso qof walba uu qaldamaa hal fursad aan siiyo in uu run sheegi baa laga yaabaaye dawicii wuu ku farxay sida cudurdaarkiisa looga aqbalay wuuna u mahadceliyey hooyo Bakaylo wuxuuna ballan qaaday in uu saaxiib dhab ah noqon doono eed u aragtaa inaan beri qaraab doonano wixii maanta soo helay way iga dhammaadeen diyaar Alisidii baan israaceynaa ee soo diyaar garow maalinta xigtay dawicii Alisey buu soo kalaay wuxuuna go'aansaday in uu wax badan soo shaqaysto si uu qaybna hooyo Bakaylo u siiyo qaybta kalena cunugiisii ugu geeyo saasna uu ku noqdo saaxiib wanaagsan